Loolan awoodeed oo aamusan ayaa ka socda badda casalkaasi quwadaha caalamku iyo kuwa gobolku ay ku tartamayaan cidda maamuli doonta mid ka mid ah marinbiyoodka ugu muhiimsan dunida. Arrintani maaha oo kaliya ganacsi iyo markab, balse waa dagaal ku saabsan saameyn amni iyo cidda gacanta ku haysa albaabka isku xidha Afrika iyo Bariga Dhexe. Xuduudda loolankani waxaa si cad ugu muuqata Somaliland oo si degdeg ah ugu soo baxday meel istiraatiiji ah oon laga maarmin. Muhiimadda badda cas ayaa sii kordhaysa, gaar ahaan iyadoo khatar ay ka taagan yihiin marinbiyoodka Hormuz, taasi oo keentay in dunidu ay u jeesato marin kale oo amni ah. Fursadahan cusub waxay sare u qaadeen qiimaha juqraafi siyaasadeed ee Somaliland oo leh xeeb dheer iyo marin muhiim ah oo si toos ah ugu xidhan badda cas. Dalalka sida Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya, Turkiga iyo Masar ayaa dhammaantood doonaya inay kaalin ku yeeshaan gobolka, balse xaqiiqadu waxay tahay in Somaliland ay noqotay albaabka dhabta ah ay u marayaan danahooda. Maalgashi ballaaran oo Imaaraadka Carabta ku sameeyay dekedda Berbera waxa uu caddeyn u yahay kalsoonida ay ku qabaan xasilloonida iyo muhiimadda istiraatiijiyadeed ee Somaliland. Si ka duwan xaaladaha kale gobolka, Somaliland waxay muujisay xasilloonideeda siyaasadeed iyo nidaam maamul oo shaqaynaya, taasi oo ka dhigaysa meel lagu kalsoonaan karo marka la eego maalgashi iskaashi caalami ah. Tanina waxay si toos ah uga duwan tahay caqabadaha ka jira Soomaaliya, halkaasi oo murano siyaasadeed iyo amni ay weli caqabad ku yihiin horumar waara. Dhanka kale, waxa Itoobiya si soo taraysa u fahmaysaa qiimaha Jamhuuriyadda Somaliland iyadoo muddo dheer ku tiirsanayd Djibouti. Haddana baahida u qabto marin badeed kale ayaa sii kordhaysa. Dekedda Berbera waxay u soo bandhigaysaa Itoobiya fursad dhab ah oo ay ku heli karto marin ka madax bannaan hal waddo, taasi oo xoojin karta dhaqaalaha iyo madax bannaanida ganacsiga ee dalkaasi. Marka la eego dhinaca istiraatiijiyadda, Jamhuuriyadda Somaliland maaha oo kaliya meel lagu tartamayo, balse waa ciyaaryahan muhiim ah oo go'aamadiisu bedeli karaan jihada gobolka. Xiriir kasta oo la sameeyo, gaar ahaan haddii la gaadho heer aqoonsi oo rasmi ah, wuxuu si weyn u bedeli karaa miiska awoodda ee Geeska Afrika. Tartanka sii xoogaysanaya ayaa keenaya in indhaha caalamku ay si weyn ugu soo jeestaan Jamhuuriyadda Somaliland. Xitaa Israa'iil ayaa qaaday tallaabo muujinaysa muhiimadda sii kordhaysa ee Jamhuuriyadda Somaliland, taasi oo sare u qaaday heerka ay kaga jirto siyaasadda caalamka. Maanta badda cas waa gobol loolan adag oo ay ku loolamayaan danaha dalal badan. Si kastaba ha ahaatee, hal xaqiiqo ayaa sii ifaysa: Somaliland mar dambe noqon mayso meel la iska indhatiro, waana xarunta istiraatiijiyadeed cusub ee gobolka Geeska Afrika, waana furaha ay ku xidhan yihiin jihada mustaqbalka Geeska Afrika. Su'aasha taagan hadda maaha in Somaliland muhiim tahay iyo in kale, balse waa cidda si sax ah ula jaan qaadi karta xaqiiqada cusub ee Somaliland hogaaminayso xilligan.